odaygu xoogaa halkaa waxbaa ka sii siibanaya waxaa ma maqlaya isagoo la caytamaya ninka la yidhaahdo ayuub baa saa yidhi meel xalaal kuma dhalan kaasaa fulaan balabalaba hadal ra-iisul wasaare maaha ra-iisul wasaare kursigan xoogaa waa ku dambowday buuskaagi maaha xoogaa waxaan ku oran lahaa niyo hawshaa iska ururi arrin baan rabaa xoogaa aan ila yaab ila noqoto fajiciiso bahda dhaqanku haddii ay dhegeystaanna aan rabo inay bal fikirkooda iyaguna wixii ay ka qabaan fanaanqeeyaan arrintaasi waxay tahay reerka laasacaana dega iyo ari caddeeye iyo somaliland waa islaayeen waa kala guureen waa islaayeen dadku waa la socdaa hadda 4 bilood baa dagaal ka socdaa 2 barowdaa ka taagan muuse dal uusan shaqo ku lahayn buu soo weeraray wuxuu yidhi khasab baan ku xukumaya odagii intaa waa ku ogeyn laakiin hadda ka daroo dhibidhal buu keenayo wuxuu yidhi nimankii dhulbahante oo garaadadii leh oo isimadii leh oo waxgaradkii leh oo siyaasigii leh oo beelahoodii xabad saa la isugu lisaayo baan isin u dooranaya subxaan allah waa arrin aad loola yaabo isin baan u caleema saaraya anigoo somalilandna oo xabad la dhacaya baan laasacaano rabaa inaan isin u caleema saaro mar bal arrintaa ha la isqabadsiiyo anugu arrintaa waa isu keeni waayey fajiciisay igu noqotay arrin aan la yaabnaa bay noqotay odaygii ma dee ninka xeerarka noocaasa samaynaya reerkii isaaq masaasay ugu jeedayaan hargii goosaye war hadduu ninku idinka adkaaday oo culimadii ku socday oo waxgaradkii ku tuntay oo meel walba iskaga dhababcaynayo ninkii la hadlay dhafoorka lagu dhifto oo ninkii waxaa khaldanta yidhaahda koorad dhibya lala dhaco oo iska doobinayo war dee saa ha ugu jeedinina ha dhuminina bah baa tihiine waxaan odhan lahaa bahdaa ninkaa ha la qabto ninkaasi waa qabad ninka bal horta ha la baaro caafimaad ahaantiisa ha la eego anugu waxaan soo jeedin lahaa ninka bahda inta ah oo tolka xigtada u xigtaa odaga horta bal inay ogaadaan xaaladiisu say tahay ninka uu leeyahay isim baan u dooranaya waa nin dhulbahanta ah waa nin laasacaano u dhashay waa ninaan hargeysa shaqo ku lahayn annagoo hargeysaa baanu intaanu meel ku dejinno hodheel ku dejinno annagaa isin u dooranayna haddee annagaa nama matele waa isin reer waqooyi weeye haddaa habar yoonis iyo ka dhigayso adugu halkaa hoggaan uga dhigayso aday kuu taal laakiin annaga waxna soo gala maaha isimadii qayba xamar bay joogaan qayba waddankii bay joogaan waa nimankaa dalkoodii haysta waa nimankaa nidaamka doonaya waa nimankaa lagu soo duulay waa nimankaa laga gardaran yahay waa nimankaa weli cid wax ka qabtala haddii 2 nin oo nin iska soconaya intuu nin yimaado nin ul iyo feer ku bilaabo oo ninka usha lagu bilaabaya oo kursi iskaga fadhiyo kan kalena taagan yahay oo dhabi ku boobayo ma ninka ka qabtaba mise waa kala qabta waa ninka ka qabta muuse dalka laga qabto soomaalida muuse laga qabto ninkii wuxuu yidhaha warjacloy muuse waa kaa gabay abwaan mar dhexdaasa iyey oo habaabaan rabaa inaan soo qaato wuxuu yidhi isimadu go-aan bay rideen gudashad ciideed goolaaftan iyo faanka waa soo gadaal maray gooja cadde waa ceeb inay gabanna joogaane ha ku gubato laga gacan waa reero gurigood halkaasay maanta taagan tahay odagiioo hargeyso isin ku dooranaya ciidankiioo dadkii xabad la dhacaya magaaladiioo la duqeynayo gantaal lagu wado wariyo waxaan is idhi nimanka artiha dul badana muuse intaasaan odhanaya arrin kale aan raacinayaayo waa ka daroo dibi dhal xildhibaano halakan jooga oo beesha reer hargeysa oo somaliland oo matalaya federaal ninku hadduu federaal joogo waa soomaali oo dhan
buu xilka u hayaa nimankii waxay leeyihiin somalilan waa laga gardaran yahay somalilan baa saxan dadka inay madfac la dhacdo weeye dadka inay xabad dhafoorka kaga dhifato weeye iyagu waxay sheeganayaan xildhibaano soomaaliyeed madaxtooyaday fadhiyaan wasaaradahay fadhiyaan wasiirra weeye xildhibaano weeye war dowladda federaalka dul badanaa iyadu haddii ninkii adigu mas-uulka ahaa oo wax u dhiibatay waxaa ku hadlaayo dadka uu leeyahay ha la laayan oo aada matashaan federaalku matelaan anigu labadaa waxaan rabaa in la isqabadsiiyo waxaan odhan lahaa nimanka xasaanaddana dhulka ha laga dhigo guriga ay u qaylinayaanna ha aadeen waa siday ku habbooneyd wey haddaan kiis loo raacin waaba criminal waa dembi ninka caruur yaryar le alla laayo waa ku saxan yahay muuse inuu gantaal la dhaco oo xildhibaan sheeganaya waa arrin aada u liidata arrintaa nimankaasi dhowr jeer bay ku soo celceliyeen dhowr jeer bay wararkaas soo geliyeen miidiyaha dhowr jeer bay meelo badan kaga hadleen xataa niman meelo kale oo ay ka dhecdhaceen oo waddooyin kaleo ay marmareen waanu ognahay sidaanu ognahay waxu sheegi mayno laakiin waxaanu leenahay haddii inaan ka tanaasulin sidaa wuxuu wadaanba waxaa laydinla wadaya iyaga intaasaan leeyahay soomaali weyn waxaan leeyahay laasacaano xasanow isimadii waa kula joogaan waa wada hadasheen madaxweynihii baa tahay ra-iisul wasaaraha waxba odhan mayno ra-iisul wasaaraha iyo hadda hadalladii waxaa la ysla soo qaataa feker ahaan nin baa dhiiqa galay oo meel wasakha seexday iyo nin baa saa yeelay iyo dad baa bini aadan noqonaya iyo hadalladii tii toobtoo kale nin mas-uuliya inuu ku hadlo ma habboona odaygu xoogaa halkaa waxbaa ka sii siibanaya waxaa ma maqlaya isagoo la caytamaya ninka la yidhaahdo ayuub baa saa yidhi meel xalaal kuma dhalan kaasaa fulana bala hadal ra-iisul wasaare maaha ra-iisul wasaare kursigan xoogaa waa ku dambowday buuskaagi maaha xoogaa waxaan ku odhan lahaa niyo hawshaa iska ururi annagaad nagu mateshaa odayaashaa ku mateshaanahay dhowr goor baan kula hadlay hadalkii dhegahaaga ku dhici maayo qoyskii reer ahaanaa ka soo jeeday nin fiican bay ku arkaan laakiin nin hallaabay baa tahay ninkii wuxuu yidhi halaa raacid mooye si kale looma haybsado odaga intaasaan leeyahay xasan waxaan leeyahay xasan madaxweyne waddankaa tahay isimadii waa kula joogaan annagu isimadii qayb baanu aragnay wanaag bay sheeganayaan dadkii aan u nimi oo xamar ugu nimi sharaf iyo wanaag baanu kala kulannay kana malaynaynaa baa layidhi ka hordhici maayo wanaagooda iyo khayrkooda ilaahay ha u kordhiyo saraakiisha gooja cadda joogta oo gurmadka u timi oo hiil walaal iyo waxa joogaba waxaan leeyahay nimanka gooja caddi geesaha ka taagan oo 3 bilood xabadda wiiftadaay intaa ku dhacayso oo ciyaalkii iyo magaalada ay joogeen ku dhacayso waxaan leeyahay meesha ama ka taga ama gooja cadda banaya ama gooja cadde banaya meesha qosol looma imaniyo in geel la iskaga qasho reere geelood in lagu cuno looma iman meesha hiil baa loo yimi wixii loo yimi dhabaya calaamadeedu ha muuqato nimankaa intaasaan leeyahay soomaali weyn waxaan leeyahay soomaali weyney intaa isu dimaadaan ducaysta wiilkii waa arkayseen geesigii islaamka turkiga ninka la yidhaahdo urduqan dadkiisi baa doortay wax ku dooran mayno baa layidhi nin maraykan wato iyo nin kale wato iyo nin shisheeyaa iyo waxqabadka iyo wuxuu leeyahay waa saa loo miisaamay caasha wa karaam bahow bay tirahdaa carabtu lama bedelo waa kaa miiskiisa fadhiya hadalkayga waxaan kusoo ururinayaa soomaali nidaamkan ay ku soconayso ama maamul goboleed ha ahaato ama meel kale ha ahaatee waxbaa khaldan waxaa khaldana la soxo waxaa khaldan dib ha loo soxo wararkayga inahaasaan kusoo ururinayaa
waa caaqil xaq u diriro wuxuu leeyahay waari mayside waara kaa haro